بسم الله الرحمن الرحيم كان وحن كسلام يا أمة الإسلام كا ملك استيجوغان سلامة الإسلام كان يقول السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمة الإسلام كا ملك استيجوغتنا وحن الله يهي عفي مادي عمر الدير عبادة الصوبان حنون نضع الدون كيسا مينا الله نجا إلى اليود الإسلام باننا هاي أنت كود عدينا عفي ماد تام الله سيو أنت دمتينا إلهي قبرك هو واسعيو waxaan la hadlayaa walaalkay Faysal Kartaay oon habeen hore la hadlay oo gabar walaashay ah oo aan jaarnahay ii soo sheegtay reer ka yimid miyi oo 7 qof ah 3 qof ay xanuunsanayaan 4 qof ay xanuunsanayaan odaygii 2 caruurna ay indhala yihiin aad u jeedaan inantaas koonahana la yiri macaan bay qabtaa cirbad bay ku socotaa haddayna cirbadda qaadanina way suuxaysaa baa la yiri oo koomi gelaysaa caruurtaana waxaa la yiri dorshiina loo keenay 15 cishay joogaan baa la yiri carrada Hargeysa 15 cishay dorshiina wuxuu yiri waxba lagama qaban karo yiri caruurtu way cararayaan caruurtu waa indhala yihiin caruurtu baad ma haystaan waxay cunaan ma haystaan hooy malaha dalkiina waxba loogama qaban karaa la yiri waa reemiyi adduunka waa iska nimca badan yahay nimcooyinka Ilaahay bixiyana waa la qarsadaa alxamdulillah nimcooyinka Ilaahay waa la qarsadaa nimcooyin baa jiro dadku waa hooseeyaan dadku waa buka nimcatu rabbi baa dadka Ilaahay siiyay dadkan wada u jeedaan way nimca badan yihiin gabar baa ii soo sheegtay ana walaalkay baan soo wacay Faysalna wuxuu yiri ii soo gudbi walaal Faysal reerkii waa kuwa waan u howlgalay galabta waan gudbiyay ummadda Ilaahayna waan soo gudbinayaa dadka muxsanaadka sadaqada jecel waxaan leenahay walaalayaal anaguba Ilaahay dartiis baan u soconaa anagoo ah guddiga wanaag farista Soomaaliland aniga Sheekh Cabdullaahi baahida ka jirta Hargeysa aan ognahay dadka dhawaataysan aan ognahay dadka xanuunsanayaan aan ognahay maadaama dadku guddiga wanaag farista uu ku jiro iyo xumaan reebista waxyaabo badan buu arkaa maalin walba waan ooynaa waxaan leeyahay dadka xanuunsanaya Allah caafi dadku waxba ku dhaca masiibada ku dhacday war Allah loo toobad keeno duni akhrisan baa lagu jiraa Ilaahay khaatimada khayr ha noogu khatimo waxaan ku soo dhaweynayaa gabadha caruurta dhashay ee caruurta xanuunsanaysa wadato ayada warbixin iyo xilliga la helay iyo xilliga xanuunka ku dhacay انت بيدا نوغو ورميسو بسم الله الرحمن الرحيم waxaan caruurtan yar ana dhaay waa 3 qof laba weyn dalayn midna macaan bay qabtaa aabahoodna macaan buu leeyahay irbada ugu shaqeeyaa wadan miyana waan joognaa marka 15 magaalada gudaheeda joognay caruurtan indhahooda way ku dhasheen waxa dhakhtar uu maxay halkan joogo wax ka qabanayna ma jiro marka waxaan codsanayaa ummadda Soomaaliyeed ee islaamka inay noo gargaaraan hooyina kuma lihin Hargeysa haday meel miyi ayaan ka nimid hantina ma lihin aan wax ku qabsano dhakhtarada Soomaaliland waxa leedahay waxba uma qaban karno wadanada dibadaha mooyaane halkan wax looga qaban karayaa ma jiro marka waxaan ka codsanayaa ummadda muslimiinta ee walaalahayga inay igu naxariistaan iyagana Ilaahay u naxariistay Ilaahay wuxuu sunaha aan idin naxariistay marka asaasan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed bismillaahir rahmaanir rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan halkan u joognaa maanta oo nimi waxaan mahadinaynaa marka hore Ilaahay baan mahadda koowaad aad u mahadinaynaa inaga dhigay Ilaahay nimcooyinka uu bixiyaa way badan yihiin muslim iyo munaafiq iyo muumin intaba wuu siiyaa laakiin wuxuu ina siiyay inaga nimcadii u qaalisanay nimcatul islaam wal iimaan ilaahay asaynu mahadinaynaa waxaan halkan u joognaa maanta reerkan halkan fadhiya waxaan dadka muslimiinta ka codsanaynaa inuu sheegaynaa dhawaaq dheer ugu sheegaynaa dadka caruurta yar ee indhahala ee aan waxba haysan ee aabahoodna macaanka la jiifo oo miyi la jiifo tuulo yaro miyi ay ka yimaadeen wixii wax karaya in la soo caawiyo ayaanu dadweynaha khayrka jecel ee muxsiniinta ku
guda iyo debadba aanu ka codsanaynaa ciddii doonaysayna way soo arki karaan waanu ku soo dhaweynaa halkana joogano xaafadu maanu ka midnay islaamnimaanu ugu hadlaynaa noo keentay annaga labadeedan anigiyo gabadhan meesha joogtaba waxaa u keentay islaamnimo waa gabadh khayr jecel oo xaafadda wixii ku soo kordha ka warhaysa sidaasaanu ka codsan layn insha allah aan salaamo saaxiibkay faysal karasaay oo wax weyn noogu fadhiya waxaan leeyahay faysalow ilaahay khayr ha ku siiya adeero waan kuu soo ducaynaynaa habeen iyo maalinba waan kuu ducaynaa dhibaatooyinka iyo gaalada iyo dhulka aan la nooshinaa fidmadooda iyo dhibtooda allah idinka nabadgeliyo cudurradan socda ee caalamka aafeeyeyna waan idinka ducaynaynaa in idinka iyo wixii islaama ilaahay ka nabadgeliyo intaasaan ugu soo noqday beel weyn baad nagaga taal horena waa loo aayay hawshii aad qabatay ilaahay jazaa'illah khayr ilaahay ka abaalmariyee maantana waxaanu kaa codsanaynaa inaad halkii oo kale hawshan maanta tii hore oo kale halkaad ka gashay aad ka gasho intaasaan ku soo gebagabaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaah alxamdulilaah marka hore ilaahay ayaa mahadda koobaad iska leh marka labaadna walaaladeeda muslimiinta ah ee samaha jecel wanaagga jecel ee dadka dhibaataysan habeen iyo maalinba u tafaxaydan inay caawiyaan ayaa mahadda labaadna iska leh walaal galabta waxaanu fadhinaa maxay ahayd qoys ka kooban 7 qof gogashoodii baanu fadhinaa 7 qof 4 ka mid walaalo waxay tabaariisay 2 caruur waxay ku dhasheen indhalaan ilaa habeenkii ay dhasheen maanta mid inanta ugu weynay 11 sanadood maraysana waxa la wax laga qabtay mid jirto waxay ahayn dad reer miya meel ay iskaga oodeen tuulaha miya dadka xoolo ka baxay ayay haayeen abaartii caruur markii hore yar ay gacanta ku haysay bay haayeen oo ay maxay heetay dee xakameyn karisay qabqaban karisay lugaa ka xidhxidhanaysay haddana caruurtu way waaweynaatay mid walba halkii ka soo maxay heetay hortiisa ayuu dhaqaaqaya mid geed gala mid maxay heetay bacbiyeysan hadduu ilaahay ka badbaadiyo halis baaba iyo qof aan waxba arkaynin caruur dabada u baxday bay noqotaan maanta gurigii lagu hayn kareynin marka waxay gabadhi go'aansatay inay magaalada la soo gasho dadka muslimiinta ah muxsiniinta ah wanaaga jecel ay tabaruc iyo qayladaan u dirato ayay markaa go'aansatay marka walaaladeeda muslimka walaaladeeda Soomaaliyeed meel kasta adduunka ka joogaanba waxaan ugu baaqaynaa inay soo caawiyaan caruurta oo dalka waxba looga qaban waayo hanti adduunyana lahayn hadda waxay joogaan halkan maanta aan ku hadlayna lagu soo dhaweeyo waa guri jaar ku leeyahay oo maxay ahayd dad islaam ah oo dariskii ay ku soo dhaweeyeen waxa la hanti leeyeen ma jirto walaalayaal markaa waxa weeyaan loo samafala caruurta sidii dhakhtar dabadeed loogu qaadi lahaa walaalaha loo samafala dadka islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh